أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahey waan salaamaya waa idin soo dhaweyna maasha allah haddaan ugu cusubtahay subscribe ha iloobina belka taabista cashirka ku gafin insha allah haddaan ugu cusubtiin bari subscribe gara insha allah marka anaga tensiga waxa waaye waxaan jeclaa inuu 12 yahay 12 ayaan jeclaa calaa kulli xaal tensiga englishka waxaan soo dhiganay simple present aan soo dhamaynay haddana waxaan ku jirnaa present continuous marka simple presenting aan rabaa inaan isku soo aruuriyo ma aragtaa sharcigiisii aan rabaa inaan ku siiyo marka intaad meel ku qortid meel dhigo si hadhow markii wax aad ku wareegto waxaan isticmaalay simple present miya tolo verb miya sidee u isticmaal rulkan hadaa hayst marble waad fiirinaysaa wixii insha allah marka saas ayaan rabaa ayaan ugu talagalay insha allah waan u akhrinaya haddii la yiraahdo the basic forms of the English verb tense simple present or present simple laba baa dhihi karaa positive ogolaansho subjective plus verbs marka subjective plus verb wax kana raacaysa mujada subjective plus verb marka maqsaamiya sidee baa loo isticmaalayaa waa ujeeda wixii verb dhan waxaan mariyay underline calaamadaas soo waxa la underline ayaa mariyay marka waxa waaye subjective iyo verb saas u kusan I clean waxaad ku dari kartaa waxa nadiifiya waxaad nadiifina ku dari kartaa markaas laakiin waxa kaliya loo baahan yahay waxaan gadaal loogu daray waxaad ku dari kartaa dib laakiin sharci waxa la waa inaad subjectige saddexdan mujada isay qaataan inaad saddexdaas xasuustid waa I clean he cleans she cleans it cleans mujada you clean we clean they clean that means waa nadiifsa wuu nadiifiyaa way nadiifsa kana waxa it waxyaalaha loo isticmaalaa la bisadoo kale way nadiifsa waad nadiifsa adiga waa nadiifina ayagana way nadiifsa soo kale ma gartay marka I you we they waxba ma qaataan verbkii caadigiisa ayaad halka soo gelinaysaa marka simple present aad soo binaysa insha Allah taas waa qaybta koowaad yaa inta kaliya ku magtaas waa qaybta number 1 xasuus insha Allah marka kan aan diidmo ka dhigno markaan diidmo ka dhigan sidee baan yeelnaa marka hadda kan maxaan ku dhahay verbka caadigii waa sidiisa waa u soo dhigaysa hadda haddii diidmo laga dhigayo wuxuu u baahan yahay caawiyo u baahan yahay maadaama verb b aan lagu darayn ma aragtaa oo is and are aan ku daraynin waa inaad caawiyo aad keentaa caawiyaha maxaa waaye waa do and does maxaa la yidhahdaa auxiliary verb waa caawiye macnaheedu waxay tahay waa caawiye muxuu caawinayaa verb ku caawinaya siduu ku caawin maadaama diidmo ay soo gashay waa in do or does meesha la soo geliya bas sidee baan soo gelinaa formka loo sumir waa maxay waa subjectigii lagu daray do or does waxa loo leeyahay do waxa qaato waad arkaysaa does waxa qaato kabacdi diidmada markaa keentid dan verbka halkaas soo galaya halkan maxay we clean soma weedii maxaa soo galay do ayaa halkan soo galay do markuu soo galo then maxaa soo gelina diidmadii soo gelina then verbki marka halkan waxaa ka hormaraya do iyo diidmadii aa soo galaya then cleanka soo gal waa saas oo kale insha Allah marka diidmada waxaan ka hadlaynaa diidmadaan ka hadlaynaa marka diidmo la suubinayo waa in aan brin oo caawiyo inaan keenaa waa insha Allah ma garatay marka insha Allah halka waa subjectii lagu daray quantity and diidmadina waa kanaha kabacdina verbka insha Allah all the verbkana waxaa ka dhigay underline hoosan ka xariiqsaa ogaata insha Allah marka subjectigiisaan ku sheegay blue waa iyaga dhan mujada verbkana underline caawiyihina labadan la isku soo darayna wuxuu ku xigaa subjectiga ayuu ku xigaa marka wuxuu u dhaxeeyaa subject iyo verbka ayuu u dhaxeeyaa marka halku you don't clean adigu ma nadiifisid you don't clean adigu ma nadiifisid he doesn't clean isagu ma nadiifiyo I don't clean you don't clean adigu ma nadiifisid he doesn't clean asagu ma nadiifiyo I don't clean anigu ma nadiifiyo she doesn't clean iyadu ma ay nadiifiso we don't clean anagu ma nadiifino they don't clean iyagu ma ay nadiifiyaan it doesn't clean ma ay nadiifiso bisadoo kale he doesn't clean ma ay nadiifiso marka saa idin soo sheegay maxaa irahdaa halkan markuu caadiya waa kana markaa diidmo ka dhigaysa waxaa lagaaga baahan yahay caawiyo inuu u dhaxeeyo inta waaye diidmada ka hor waa inaa caawiyo soo gelisaa insha Allah taas haddaad fahantay maasha Allah waaye okay taa waa isla garanay marka su'aal markaan ka dhigano maxayna subnaa su'aalna waa almost sidii oo kale su'aal marka ugu hore su'aalo ogtahay su'aash inay u hormarto waa
ma kaste caawiyaha markaan hantuu marayaa horeyuu marayaa ma kaste marka muxuu noqonayaa waxa marka walaalayaal question word markaan subinayno laba midaa kuu bannaan ma kaste waxaa yeeli kartaa question wordiga waa soo dhiganay w who what when where all ereyadaasoo kale ma aragtaa iyo duuda kuwaan inaad ku dartid oo su-aal ka dhibi ka aad ka suubisid ama kuwaan oo kaliya halba caawiyaasha ah halkaan marinaysa subjectiga ka daba marinaysa saasna su-aal waad ka dhigi kartaa hadda ka hor intana waa soo wada dhigana bal haddaan aragno ma gartay do you clean the dishes mujada do you clean the dishes mujada waa kana su-aal ayay noqonayaa ma kasta markaad isdaba marisid subjectiga waa kanaha hal caawiyaha ka hor marinaysaa wuxuu noqonayaa su-aal ma gartay do you clean the dishes aduu disheska ma nadiifisaa do I clean the dishes anigu disheska waxaa la wada weelasha saxmada digsiyada waxaasoo kale la wada ma nadiifisaa do we clean the dishes anagu weelasha ma nadiifinaa marka does he waxay qaadataa does he clean the dishes asagu macna weelasha ma nadiifiyaa iyada hadda halkan waxaa isaga weelasha ma nadiifiyaa does he clean the dishes does it clean the dishes iyada ma nadiifisaa ma fahantay it waxyaalaha loo isticmaalo laakiin waxa kaliya halkan laga dalinayaa in ereygan sida loo isticmaalayo oo lagu fahamsiiyo ayaa looga dalaya ma garatay laakiin waxyaalaha waxaa laga yaabaa in dishwasherka naftigiisa was dhaqaa dishwasher laakiin wax ma dhaq kara laakiin waxaa laga wadaa uun faham it inay qaadato daas inaa u fahanto insha allah marka insha allah qaybtaas waa kana qaybta kale waa kana when wajada who isticmaal where all of that question or who or what question what WHAT ayaa isticmaali kartaa halkan ka bacdi waxaa soo galaa caawiyaha then subject then the verb saas ayuu noqonaya saasoo noqonaya kuwaana waxa waaye subjecti gudaha soo galaya caawiyaha halkaas maraya ma karta saana waa ka dhigi kartaa su-aasha laakiin kan kuwaan haddaa keenis maarta kuwaan caawiyaha inaa kusoo darto waa insha allah qaybtaasina waa naga xirantaa insha allah maanta hadda qaybtii oo verbiga ahaa oo simple present oo present simple ay hadda baranayna insha allah marka waa kanaa sidaa hore idinku soo sheega I am he she it ayaa maana soo qaadan inay qaadanayso we you theyna waxay qaadataa are marka hadda annaga waxaan ka dhiganaa positive see looga dhigaa I am hungry anigu waan baahanay he is hungry isagu wuu baahan yahay negativekan muxuu qaadanayaa negative markaan ka dhigan sideen wax yeelnaa waa subjectigii verbigii iyo diidmadaa kusoo daraysaa mujeda caawiye loogama baahna inta caawiye ugama baahan mujeda I am not mujeda waxa verbiga diidmadaa aad soo kusoo daraysaa bas subjectaa u hormaraysaa verbigaa keenaysaa diidmadaa keenaysaa iyo maxaa lahaa main verbkii waa saas I'm not hungry anigu ma baahni he's not hungry isagu ma baahna markaste su-aalna marka see ka dhignaa su-aasha waa isdaba marinaysaa labadan aa isdaba marinaysaa waa kan ugu sahlan ugu fiican waa isdaba marinaysaa is he hungry isaga mu baahan yahay haddana markaad w aa ku daraysa mujeda w halkaan aad soo dhigaysaa halkan ubaad w soo gelinaysaa mujeda why are you hungry maxaad u baahan maxaa u gaajaysan tahay why are you hungry marka waa kaas waxaan rabaa uun inaan sharciyada maaragta ayaan idin baraya insha allah marka insha allah waxaan qaybtan maxaan dhahaa aan idinku soo celiyo waxaan rabaa inaad meel ku qorataan waa sharciyada oo present simple ama simple present aad u isticmaali lahayd waayo inaad meel dhigto wax joogto ah wax run ah wax maalin walba dhacaya waa joogto weyaan iyo wax ka runa markaad suubinaysa sidoo kale sharciyadaanayd meel ku qoro marwalba waa soo baxsanaysaa waad fiirinaysaa marka insha allah intaas ayaan idinkugu soo celiyey haddii alay marka hadda cashirkeenii present continuous aan wadanayna insha allah khayr iyo caafimaad baa idin rajeynaya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu